dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanad waxbarasheedkii tagay 2022-2023 jaamacadda Frontier bandhigii hidii dhaqanka Soomaaliyeed iyo maamuuska jaamacadda Frontier Somali baa hadlay sanaanta la magacahay sanqleeb la moogay inuu iga sareyn karo anna garasho sabtagan sooriyoon ugu dhiga Somali baan ahay waxaa dhacay tartankii sportska kulliyadaha jaamacadda Frontier kaas oo markii ugu horeysay ay ku guuleysatay kulliyadda dentistry waxaa qabsoomay bandhig waxbarasheed aad u ballaaran oo ay jaamacadda Frontier u qabatay ardayda ka soo qalin jebisay dugsiyada sare ee dalka waxaa la qabtay doorashadii gudoomiyaha ardayda jaamacadda Frontier taas oo u dhacday nidaam qof iyo cod
xafladii soo dhaweynta gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Ayuub Cabdullaahi oo kamid ahaa ardaydii ka aflaxday jaamacadda Frontier. barnaamijkii la kulanka ardayda jaamacadda Frontier oo uu qaybta ka ahaa gudoomiyaha jaamacadda Frontier Dr. Yuusuf Xaji Xuseen Macruuf. sanad waxbarasheedkii 2022-2023 waxaa lagu soo xiray xafladii dufcadii toddobaad ee jaamacadda Frontier taas oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya, culimo u diin, aqoon-yahano, dhaqaatiir, marti sharaf qaybahooda kala duwan, waalidiin, arday, bahda meediyaha iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan oo ay leedahay.